هذا gacanta iga dhacday. Okay, ما شاء الله. جمعة ونكسن الحمد لله الشكر لله إلهي وألقى محض عليه. ليش على لازانيا تعالى لازانيا ما شاء الله جميل سودو لازانيا يا ما شاء الله إلهي عفانوس الرحيم. gabar culus waxayna leeyahay dhammaantiin adduunyada meel kasta ay ku nool yihiin saaxiibaday dadka jecel ee bartayda ku xiran waxaan leeyahay jimco today waa maalin jimco ah inaan isku duceyno waayo dhammaanteen bismillaahi raxmaan raxiim ilaahu caafimaad nooga dhig waa inaan isku duceynaa oo isu salaannaa oo is dhunkannaa oo is marxabaynaa oo jimco wanaagsan isdhahnaa maandeeq soo dhowow haddaa jimcihii loo socdaa ogaa lazaaya lasii tataaminaa isugu waxya على هذا برفونا سوسو على هذا I know just even saying it, which option is the smarter one. I know. You did fantastic. Okay. wuxuu yidhi ogaani barfunkee jeceshahay maxamed kuukaay soo dhowow min adeer jimco wanaagsan ilaahay waxaan ka baryaynaa jimcahan jimcihiisa barwaaqe iyo baraare inuu ilaahay nagu gaarsiiyo waalidiinteen inta dhimatana ilaah u naxariiso ilaahu intii dhimata u naxariiso ilaahu intii noolna cimrigooda dheeree ceebtooda asto aad baa u mahadsantahay jamiila ogaa yaroo lazaaya weeye gabadheeda ay samaysay maasha allah is cook like me anigaana cook caruurtiina waxbara ilmihiina gacanta qabsada tusa legacy ooga taga ilaahay waxaan uga baryayaa intii muslim oo dhimatay waalidiintay waxay dhihi jireen jimcaha waa la ducaystaa cabdirasaaq soo dhowow saaxiib well done excellence cabdirasaaq magacaad waxaan ku jirnaa wax yar waaye firaaqa ma haysto waqtina ma haysto inaan waxaan rabaa salaado badan tukado hadduu ilaahay nafti ugu simo maantoo kale waa maalin khayr qabto weeye waa jimco sharaf leh karaamo leh aniga markaan jimco soo gaaro maalintaas aad baan u farxaa sababtoy tahay isbitaaladan tagaa waaga markuu bariyo 6:10 in the morning ilaa salaada jimcaha laga gaaro hadda ayaa soo galay waxaan soo salaamay dad aad u badan oo xanuunsan oo iskugu jira haween iskugu jira dhalinyaro odayaal dhammaan waa usoo duceeyey marka
waxaan inugu bogaadin lahaa dhammaantiin haddaad firaaqo haysaan isbitaallada aada dadka soo bariidiya nabi caleyhi salaatu salaam wuxuu yidhi maalinta jumcaha ah waa maalin khayrkeeda wadata waxaa wanaagsan inaad dadka caawinto inaad bukaanka soo siyaarato inaad qabuuraha tagto ood qabuuraha siyaarato adeerada awowada aabbaha wixii dhintay inaad u soo ducayso inaad qur-aan badan u akhriso maalin jimcaha qur-aan badan baa akhriyaa ilaahay waxaan ka baryaa intii dhimatay ilaahay u naxariisto intuu noolna ilaahay caafimaad iyo barwaaqo uu ku waariyo intii dhimatay ilaahu garaashooda hana dulaynin ilaahu iimaanka hanaga qaadin ilaahu gaal hanaga dhigin ilaahu muslimnimo nagu dil annagoo muslim oo adigu baryeenna inaan dhimanayno waa ognahay ilaahu annagoo dhimanayna adoon ku baryeenno oo aan oynayno oon madax dhugu ku hayno ilaahuna dil anigii intii fiirsanaysaa farxiya soo dhawo abaayo jimco wanaagsan dhammaantiin waxaan leeyahay hala sheekareeyo firaaqa badan ma hayo hadhow waan isku soo noqon doonaa markaan salaad jimcaha ka soo baxo maanta arrimo badan baa jira waxaan ka hadlaynaa arrimaha jubbaland waxaan ka hadlaynaa arrimaha galmudug waxaan ka hadlaynaa prime ministerka safarka uu ku tegay xudur muxuu oga dan lahaa muxuuse u tegay waxaan u jawaabahayaa daahir cali sow waxaan u jawaabahayaa dhammaan dhalinyarada ku xiriirta facebooka waxaan u jawaabahayaa dhammaan dadka jecel inay dadka isku diraan soomaaliya ilaahay baa badbaadin kara bini aadan xumaantooda iyo qurnimadooda iyo daanyarnimadooda wax ay ka qaadi karaan male marka anigu waxaan dhihi lahaa soomaaliyey isku tashta aan iska qabanno afarta xunxun ee annaga nagu jirta aan iska qabanno marar badanna waan ka wada hadalnay arrintaa iyada ah waana ku soo celcelinayaa waa in madaxweynaha iyo prime ministerka ay ka saaraan xalane dadka ku jira hadday doonayaan soomaaliya inay dib u soo laabato arrintaasna waa arrimo hore aan u soo sheegay oo aan ku yidhi madaxweynaha maalintuu qabsaday baasaboorka dhig wuxuu dhigay waa 5 bilood kama soo wareegin hadday dadku ogaadeen madaxweynahana hadduu ogaadeen dad waxay dhahayaan waa laga qaaday baasaboorka dadna waxay dhahayaan asagaa baasaboorka dhiibay laakiin anigu waxaa aaminsanahay fikradeenna waxaa la yidhi fikradda adig kaa maqan walaalkaa bay ku jirtaa waxaan aaminsanahay maxamed cabdullaahi farmaajo inuu hadalkayga dib ka maqlay dibna ka dhageystay haddii maalintaas uu maqli lahaa isla maalintaas uu ku dhawaaqi lahaa haddase intay hadda ay waqti tahay baan awoodnaa inaan ka saarno xalane dadka noogu jira hadday ahaan lahaayeen carab hadday ahaan lahaayeen ingiriis hadday ahaan lahaayeen maraykan hadday ahaan lahaayeen khadaryan hadday ahaan lahaayeen united nation iyo bakti wax ka socda in aan ka saarno waay waa in ay dadka la degaan shacabka soomaaliyeed waa inay la degaan annaga marnaba ma yeelino soomaaliya in laba nolol in lagu kala nool yahay dadna inay ku noolaadaan ma dhicin annagu hindi ma nihin dad damiir laan nahay dadna inay ku noolaadaan jagada ugu sarraysa oo habeenkii isteeg ku cunteeyo oo cuntada bannaanka u tuuro badda iyo qashinka lagu tuuro dadna ay gaajo u dhintaan wax aan yeelayna maaha maalin jamcaa waaye ilaahay waxaan ka baryahayaa qofkii arrintaa ayada ah ku lug leh ama siiyey ama awooddaa gaaladaa siiyey ilaahay inuu ka soo saaro isheena maalin jamcaa waaye aamiin ii dhah kulligiin waxaan aad inaga baryahay arrintan ciyaar maaha halla maaragtay sheergareeyo inta meesha qol ku jirtana aamiin ii soo qora maanta waxaan habaarahayaa dadka u ogolaaday in ay xalane ku raaxaystaan ilmo yaryar oo alkulistayaal ah oo xashiishka iyo daroogada futada ka caba oo kulligood lesbians gays ah in ay soomaaliya ku raaxaystaan dadna ay gaajada halkaa waxay maryaan ila yihiin ilaahay waxaan ka baryaa dadka u ogolaaday ilaahay inuu wadnaha istaajiyo ilaahay inuu dhiigooda waa noo bannaan yahay dhiigooda loo banneeyo ma garat
marka aad baan oga xumahay aad iyo aad arrintaas. Cabdirasaaq soo dhawow. Xalane dadka ku jira waa in Soomaali haddii ku jirto saaxiibadii baa ku jira inay iskaga baxaan. Waana inii sheegay waa in loogu dhacaawiyo maxamed siyaad barasiil loogu dhac waa taqaanin madaxtooyada. Xalana idinkaa iska leh u dhaca qabsada. shacabka Soomaaliyeed baa Xalane iska leh ma garat. annaga gaal waan naqanaa sharaftiisa iyo karaamadiisa waan garanaynaa ma garat. dad muslimiinaan nahay waa inaan u hogaansanaanaa diinteenna sharafteenna iyo karaamadeenna waa inaan wadanka ku maamulnaa. ma aha annaga wiil laba jir ah oo dad soo dirsada aanan garanayn inuu annaga wadankeena ku ciyaaro. adeer raalli kama noqonayno, maalinna kama noqonayno, habeenna kama noqonayno. marka saaxiibayaal qofku waxa igu haya salaadii waxa in ila aamin isoo qora waxa aan sheegay bilisxaanig inta i fiirsanaysana ha sheegarayso. dadkaan habaarayna ilaahay inuu ka soo saaro isheenna hooyada Soomaalida ee waxay cunto la dadna duulsho iyo buskud ay daadinayaan iyo hirib isteega oo xataa qansiir wadankeena la keeno. xataa doofaaradii joogay bay ka dhameeyeen oo ay cuni jireen libaaxini waxaas ayay baa cuna ma garat. aamin afka ah maaha aamin urka ah weeye. Soomaali waa xor garyaqaan. Soomaaliya xor weeye. waa been ku dhahay Soomaaliya xor ma. Soomaaliya waa xor. ilaahay baana xor naga dhigay. Soomaali adduunka meel isu joogin male. war dhulkeena seeno loogu gumaystaa annaga. war dhulka aniga leeyahay see loogu gumaystaa. war qaxooti baan ka ahay intaasoo sanaan qaxooti ka ahay oo aan bannaan hoof ahay. أنا حتى نفسي أكون دمس المهم مساس يكون دمس صناعة جوابته ومية وأنا المهم ماله شحن حارة Soomaali waa la iskugu imaan waqti ahaato walla waa la iskugu imaan. ninkii gaala la shaqayn lahaa iyo ninkii asaga shaqaysan lahaa Soomaali waa la iskugu imaan. marka waxaan oran lahaa dad iyo dib iskugu noqda in maskaxda laga shaqaysiiyo waay. aad baa inii salaamayaa. maanta inaan soome ahayd nin baa wuxuu yiri jimco waaye isniinta ka dhigo. marka ilaahay khaatumada ha noo sahlo. inta xanuunsan ilaahay xanuunka ka baabi'iyo. inta caafimaad qabta ilaahay u siyaadiyo. waalidiinteen mootida ahay dhimatay ilaahay janna firdawsaha ka waraabiyo. ilaahay qabriga ha nuuriyo. dhammaantiin waa inii ducaynayaa Soomaali weyn meel alla meela joogtaan qofkii lagu jiro ilaahay baa og. markastana anugu markaan seexanayo shacabkeyga waa u duceeyaa. hani soo dhawow waan ka bixi rabaa aad baan uga xumahay hani waan ka bixi rabaa sababtay tahay salaadii baa haysa maasha allah waa inaan cararo weeye. marka hal la sheer gareeyo hadal waa dhameeyey. waxaa inoo ballan ah muqdisho inoo ballan ah waa inaad ka dhacdaan derbiga waa inaad ka dhacdaan waa inaad ugu tagtaan nin kasta sariirtiisa isagoo hurda. hadaad laba kaa dhimatay haddii saddex kaa dhimato mashaakil ma saaxib. Soomaali horaan u dhimanaa anaga dhimasho kama maqaano. Abdullaahi Farmaajo iyo xasan cali khayre shacabku wayna aamineen. shacabka albaabada u fura una sheega xalane haddii inay ku degin shacabka iskale shacabka degaya faraha u qaada shacabka ayagaa qabsanaya. marka aad baa inii salaamay. ilaahay waxaan ka baryayaa dhammaantiin caafimaad inuu siiyo hala sheer gareeyo. hadhow baan isku soo noqonaynaa. aad baan u caraysnahay markaan maqlo xalana waxa lagu sameynaya aad baan u caroodaa. dad saaxiibadeena way ku jiraan aan aad u jeclahay laakiin ha iskaga baxan baan dhihi lahaa. waa la imaanayaa idamka ilaahay ha ka baxaan. shacabka Soomaaliyeed waa fikireen dib bay iskugu noqdeen meeshaan waa la garaacayaa.
نول به نفلة ويد سوما أنا أدبر كو سلامي لما أنت هذا وسلامتين هلا شرقريو الشرقرية لما هلا شرقريو أنا سكراب يوحمني مرة الحمد لله دتك الفيسبوك يوحكو راسي دميه إلهي ما أكون مهدي الحمد لله برواقع كجرا هذا مرسوم الصوت ساي أنا عفمات قبا أن صلاة يتكنعي أنا صلاة يتكنعي أنا أسيحناي كف حضون بهني إلا هذا حبك كان فاهمين هني I'm very sorry مركنا ولا هذي دورنا مرك إلهي وحين يجبري عفاني براري هلا شرقريو صلاة بعدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I love you all of them جمعوا ونحسن ساسيو نمت كريم